dalalkan aan joogno waxaa dhisan institutionka civil servantga politically shaqo kuma laha uu codeyn karaa oo hadduu rabo xisbiga shaqaalaha uu noqon karaa xisbiga muxaafadka uu noqon karaa qofka laakiin qofka civil servantga ah ee public office haya oo aan political position joogin shaqo kuma laha waxa ka dhacaya political annaga marka dhibaatadan haysato waxay tahay annaga ma lihin wax kala saaran qofka jooga hay'ad dawli ah wuxuu haystaa inuu siyaasi yahay haddii xagga wax ka dhacaan waxa laga yaabaa inuu isaga tag meeshii uu joogayba uusan hawsha wadan waxa jirta booliiska waxa laga yaabaa inay qayb la saftaanba markii crisis dhaco inta impartiality-gu meesha ka dhumo maxkamadii waxa laga yaabaa inay burburto aysan waxba qabanba maxay ahayd maartay marka waxa la rabaa baarlamaankan inuu sidiisa u jiro haddii dawladda problem ka dhaco uusan ku milmin waxa la rabaa booliiska iyo militariga iyo arrimaha difaaca iyo waxa soo dhan wadanka sidiisa inuu u jiro siyaasadda ay ka baxsan tahay oo siyaasadda waa isku qabsanaa siyaasadda waa la kala aragti duwan yahay isku fikir laga wada ah isku meel loo wada socdo healthy way siyaasadda in la isku qabsado waa wax caafimaad ah anu waa aaminsanahay in la isku qabsado in lagu doodo in dawladba maalin walba la rido tu kala la keeno waxaas waa evolutionka siyaasadda waaye waa arrin fiican waa say hore buu yiraahdeen in politics horses for courses moogta marka it's good in waxaas ay dhacaan laakiin institutionska kale ma jiraan mana dhisna marka arrin oo aan ku eedeyn karna ma ahan dadkii ama askarta ahaa ama booliiska ahaa way dhisi kartaa dawladda way dhisi kartaa laakiin dawladda hadda aan aragnay oo dhan dawlad kasta hal shaqo oo ay qabatay oo ay dhameysay ma aragni ka soo bilaw 90 ilaa hadda hal shaqo oo la dhigi karo shaqo hebel ay dawladdan qabatay wayna dhameysay ma jiro mar walba mid baa timaada in the middle of mutaqana waxay oo dhan waa they collapse wax kala imaanaya waa isku dhaxyaacayaan shaqada taala meesha oo tirada badan example dan ku sii iskuulada gobolka Banaadir ka soo qabo marka haddaan tusaale ahaan u soo qaato gobolka Banaadir wuxuu awood u leeyahay primary schools-kii oo dhan inuu dayactiro una shaqo geliyo fargelintaas waxaa ka mid ah haddii hadda aan London ka hadalno booliiska London yaa xukuma meerka xukuma why oo mayor of Mogadishu uu booliiska gobolka Banaadir u xukumi waayo therefore systemka maba loogu talagelin ba inuu dhismo